kulankan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha la dagaalanka budhcadbadeeda wakiilada Somaliland safiirada qurbajooga Somaliland ee dalka dibadiisa ganacsatada aqoon-yahano khubaro arrimaha bulshada ku xeel dheer iyo marti sharaf kale gudoomiyaha hay'adda qurbajooga Somaliland mudane Cabdilaahi Xirsi oo ku dheeraaday waxqabadka hay'adda qurbajooga Somaliland ayaa ka waramay waxtarka qurbajooga Somaliland u leeyahay Somaliland waxana uu sheegay ujeedada shirkan in ay tahay sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa iyo gorfayn qabiyo qoraalka siyaasadda qurbajooga heer qaran ee Somaliland dawladda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ayaa ku dhawaaqay fuliyay in la aasaaso hay'adda qurbajooga qaranka wax badan baa noo qabsoomay mudada waxa kamida oo ugu weyn waxa noo qabsoomay heerkii aasaaska qurbajooga ama ay dhinaano afka qalaad Establishment Act of Somaliland wuxuu maray golihii wasiirada haddana wuxuu yaalaa golaha baarlamaanka waxaan noo qabsoomay in aanu annagoo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda uu yahay line minister kayagu oo aanu hoos maadno wasaaradda arrimaha dibadda waxaan noo qabsoomay in aanu samaysano xafiis oo maanta xafiiska qurbajooga meel ay ku higtaan oo ay arrimahooda kaga tashadaan oo hoolalkiisii leh oo meelihii ay discussionka ku ayaa jira waxaa jira website-kii oo aan u samaynay waxaan samaynay waxa laalamidiyihii ama ha noqoto Facebook ha noqoto ama Twitter ha noqoto waa u diyaar waan samaynay waxaa samaynay shaqaale waana wal jirin oo mar saddexdaas xafiisku laba sanadood uu xidhnaa shaqaalihii baanu abuurnay shaqaalihii ayaa jira oo ka shaqeynaya waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqaya IOM hay'adda IOM oo noogu deeqday inuu suurtoobo fadhigan ay isugu dhimi maanta oo ay hogaaminayaan Maxamed Cumar ayaan Ifraax ay hogaaminayaan ayaa noogu deeqday oo ay in ay shirkan garab gacan mugle naga siiyaan aad iyo aad baanu mahadnaqaynaa nagu caawina inaad saxabka noogu tuntaan gudoomiyaha la dagaalanka budhcadbadeeda Somaliland iyo xubno ka socday hay'adda IOM oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxay ku dheeraadeen sidii loo dhiirigelin lahaa qurbajooga dalka uguna soo laaban lahaayeen si ay maalgelin ugu sameeyaan dalkooda dhinaca kalena wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland mudane Maxamed Bixinle Boqorre oo ka waramay doorka qurbajooga Somaliland ay ku leeyihiin horumarka dalka ayaa ku amaanay gudoomiyaha hay'addaasi dawliga ah ee qurbajooga Somaliland doorka wax ku oolka ah ee ay ka ciyaareen taageerada ay dalkooda u hayaan taawada waqti dadku yani waa xoog ugu weyn ee quudiya ummadeena marka dhinaca laga aad baa loogu leeyahay xagga oo waa ku ammaanay ka wasaarad ahaan haddaan dib u soo noqdo qurbajoogeena dibadda joogaaye oo iminka ay isku dubarideen wasaaraddu waa dad aad active u ah dadka looga shaqeeyo waaxda wakaaladaasi waxa weeyaan waxa dhacay in ay yihiin maanta waxa weeyaan madaafiicda goobta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga qurbajoogeena sababtoo maxay waxay jiciyaan meelaha aynu ka rabno Somaliland maxay tahay Somaliland tiraafraadinteeda ayagaa xooga wakiilada leedahay wakiilada meelaha jooga qaar hayna wakiilada joogin baa jira iyagu baa wakiila waxaan yani waxa waxaan aad u amaanaya baabuur baa miisaaniyadii loogu daro kal hor markaasaa waxaa dhacay xulwaan qolba meelan ku dhiso meelan xafiisba ma haystee baabuurkayga lacagta bedela oo halayga dhiga guri aniga iyo isagaa u tirnay wasiiradda maaliyadda samson waxaan ku nidhi bedel lacagta way bedeshay guri dhisku bedel annahan iska lugeeya bir haddaan doono
qurbajoogku aqalka uu ku jiray waxa weeyaan gaarigii isagoo qoraasa markaa ku xidho nin la mid ah oo Soomaaliland hoosta ay yeelan shacabka loo weeraruhu taariikhda ugu xusan nin walba masaxdo ku hay waa ninka kaliya yiri anuu waan lugaynayaa anuu gaari ma qaadanayo lug baan ku soo shaqo tagayaa laakiin qurbajoogku xafiiska qurbajoogga loogu dhiso miisaaniyadda gaariga iyo jira miisaaniyadda ee lagu dhisay xafiiska rastiga ee weli sidii ku lugaynaya inuu gaari wiilina bilaa gaariga laba xilli kartaasoo kale aad u taawu ammaanay abaarihii waxay ka soo qaateen xoog weyn berigii ilaa ceeri gaabay tigeen ilaa iyo awdal meel walba ay soo mareen waxay clips bay ka soo wada qaadeen clipskii bay caalamka oo dhan wada hordhigeen iyaga nooga shaqeeyey qaybtaasaa nooga shaqaysay abaarihii oo noo qaabilsanayd oo magaranaysa had iyo jeer meel kasta intay tegeen clipskaasaan caalamka u gudbinayna haddana wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marka taa aad bay uga shaqeeyey